السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام صاحب يال فيديو waxaa lasoo dhigay bartayda tiktoka dhalinyaro badan oo saaxiibanaha ka falceliyay oo isoo DM gareeyay oo igu haysta qaabkan u sheegay inuu sayidka u geeriyooday. waxaa la rabaa horta in mid laisla fahmo. Video number 1 ujeedada videoga waxay ahayd magaalada qadiimiga ah email reerka iska leh cidda ku dhaqnaa jirtay inaan ka hadlo anigoo kaga falcelinaya Yaxya Shaacir nabadoon oo wareegsan oo wareysi uu ka qaaday oo ku noolaa email bari. nabadoonkaas isku dayay email galbeed taariikhdeeda dhan inuu usoo raro dhanka email bari. email galbeedna ka dhigaya degmada Wangala. marka anoo ka duulaya taas video soo qaatay kadib geeridii sayidka ayadana kusoo lug yeelatay oo waxaa meesha la isweydiinaa sayidka geeridiisii magaalada maxaa isku xiray. taasaa dhalisay inaan sayidka soo hadal qaado. haddaa warka soo koobo sayidku allah u raxmado gabaygiisu ku sheegay asoo ilmku kasoo kicitimayo wuxuu yidhi halkan ilaa iyo email haddaan weerar ku ekeen nin eresoofsada haddaanu eber soo dheelman nin adoogii nooli haddaan uunka laga waayin dee meesha uma soo aadin cumro iyo maxaa la dhahay inuu soo booqdo siyaaro oo nin imaamkiisa meesha ku nool lama oran. dagaaluu soo aaday inkastoo dagaalkiisa ujeedka ahaa dad Soomaalidu asii ka hoos shaqeynayay jawaasiis badan oo hantidiisa dhibaatada kiisa loo geystay. aakhirka markuu magaaladii yimid dadka markuu magaalka yimid way isfahmeen reerkii Karale oo deegaanku si nabad ah lagu wada joogay waa heshiiyeen email u dagay ilaa aakhirkii asigiyo maxaa la dhahay sheeg ugaas aadan baare gabartiisa oo aroosay oo la oran jiray risaala aadan baare oo dadkii dadxeeda noqdeen meeshii muddo wada joogeen adiga dhowr sano kadib sayidka daraawiishtu waxay bilaabeen fasahaadkii iyo dhici ay ku hayeen Soomaalidii degneed gobolka bari iyo nawaaxigeeda ilaa daraawiishta naqaan ciidaha qaar waxay ka qaadi jireen qaniimo oo cashuur caadi ah la saga rogi jiray ciidaha cashuurtii inay qaadaan isku dayeen oo laba emailii wabiga dhinacyadiisa dadka degnaa iyo magaalooyin kaleba cashuur xoogan inay kusoo rogaan taasoo dhalisay inuu dagaal dib u qarxo dagaalkaasoo sababay in la cirib tiro daraawiishtii sayidkana meesha ku geeriyoodo allah u raxmado intii meesha ku geeriyoodo ayagana allah u raxmado. waxaan ka hadalnaa un qaabka u dhintay. hadday idhahdeen sayidka waxaa sheegaysa qaabka u dhintay waa been adinkuna sayidka lafihiisa ma haysiin oo ma baarina oo qaabka u dhintay cudurkii waa war awowga kuu sheegay anna taariikhdu waa laba nuuc ee dadkii deegaanka degnaayo ehelka ahaay qaabkii wax u dhaceen aan ka wareystay. marka haddii mid qoran aa haysiin oo caddeymihii sayidkii baaristii la mariyey markuu dhintay kadib cudurka u dhintay wixii la xaqiijiyay haysiis okay sources waan ka aqbalaa. haddaan source noocaasa aadahayn dama diidi kartid midaan kaloo tan kale emaildan aan kusoo laabto email bari waxa loo aasaasa waxay tahay in lagu afgambiyo emailii hore oo taariikhdeedii waxeeda la qaato. hadda adeerka la wareysana wuxuu leeyahay meeshan Portugiis lagula diriray sidaan waaye intay ka dhacday Portugiis email muu soo gaarin Portugiis email Portugiis muu soo gaarin Portugiis dhankan dalkan maanta Eritrea la dhaho iyo gobolkan Tigrayga iyo maxaa la canfarta dhulkooda dagaalo badan ku dhex maray asiga iyo Soomaalida laakiin email cagaha muu soo dhigin. marka in taariikhda laga been sheego oo qof nabadoon isku sheega laga wareysto oo maxaa la bilaa source bilaa cadeen iska hadlo haddaan ka falceliyo in meesha luuqa ka soo guryantiina ay weydiisiin cadeema u heesaa iyo saxaabo badan oo dhimato meedkooda la heenaa jirta iyo adeer hurdada ka kaca. sayidku wuxuu dhintay 106 sano ka hor 106 sano ka hor oo dhintay. sayidka allah u raxmado wuxuu dhintay 1920 106 sano ka soo wareegatay dad xilligu dhintay agaarkeeda dhashay iyo dad xilligu asigii dhimanaya noolaayo 2000 agaarkeeda dhintay 100 sano xiray
oo la xog wareystaa jira. sayidka dadka horreeyo dhinto maanta qubuurtooda lahayaa jiro. Tusaale haddaan soo qaadano yuusuf cali kanadiid iyo inay yuusufka iyo wiilkii oo sii dhalay qubuurtooda waa lahayaa, meeshay ku yaalaan waa la yaqaan. ina xaaji shadoor meeshuu ku duugan yahay waa la yaqaan. sheekh xasan barsane meeshuu ku duugan yahay waa la yaqaan. adii qof 500 sano ka hor dhintay dee ma marsiyo u raadin kartaa, laakiin nin 106 sano ka hor dhintay alla u raxmaday ma marsiyo uma raadin kartid. qofka wuu geeriyooday, okay, malaria u dhintay ama duuma asiga iyo wixii dhan waa isla dhinteen, inaa iga dhacsiisaa rabtaa. hadda for example dowladda kacaanka waa laga adkaaday, okay, jabhadaha ka adkaadeen, militarigii dowladda dhan way burburtay. ma la dhihi karaa siyaad markuu dalka ka baxay asii ciidankiisa way faanish garoobeenoo hal mar isdaba qabsadeen oo cudur laaquna ku dhac, ma la dhihi karaa? waa maye, waa la ogyahay sababtay u burbureen iyo meelihii kala galeen. tusaale kale, khadaafi Libya one of the strongest in Africa ahead, lacag aday noqotay awoodda noqotay. khadaafi markii la dilay kadib burburay gashay maanta, macnaha 100 sano kadib qof iga dhadhacsay ka waran khadaafi meeluu ku duugan yahay lama yaqaano oo dagaal noocaas ku dhintay. askartii asiga la shaqeeyay dhammaantoodna cudura ku wada habsaday. waxaa sheegaysa wax noocaas sabab la'aan ma dhimanin, sabab u dhintay deegaanka mudduu joogay, taladuu gees ka lahaa, laakiin aakhirkii asiga beesha meesha degan isku dhacay waxay sababtay in naftiisa ay galaafato. hilmaami hadalku ma jiro. muuqaalkii hore aan waxaan ku dhahay email bariya asala qalada meesha ka dhacay oo email galbeeda midda asalka ahayd oo gobolkan afdheer ka tirsan. email bari waa dhawaan gal lana doonayo in lagu xado taariikhdii iyo dhaqankii soo jireenkii ee lahayd email galbeed. marka baasha la cadiifadeen taariikh un baa ka sheekeynaynaa, nacab kale ma jiro. haddii aad dacwo ka qabtaan oo inaad ka falcelisaan rabtiin, kolley qaab taariikhaysan iyo usoo bandhiga, waan aamini raalgelin oo ka bixin. hadduu malaria u dhintay waxaa rabaa yaa baaray, yaa caddeeyey, yaa laga wariyey, waa isla garanaa malena. laakiin haddaa theory oral haddaa wadatid oo afka keliya oo awowgaya ka dhaxla aawadid, adeer awowgay kama fiicna, waa garataa malena. dadka deegaanka degnaa ilaa maanta deganaana joogo oo laga wareystay, ugaasidii ilmihii dhaleen oo ugaasnimada ka dhaxlaa nool weli, waa garataa malena. marka waxaa dhahnaa jira, wixii kalena waa been, cidna kaa qaada mayso. taariikhdu waa labo, waa mid oral ah iyo mid recorded oo buug ku qoran. haddaadan ii heenin mid oo record garaysan oo cad oo la dhihi karo meydkiisaan baarnay ama ragga isla shaqeeyaya la baaro cudurka laga helay and it's recorded by qoraa hebel hadaa la dhiheen, waxaan isku sheegno waa been. marka asxaabta taariikhdii cadiifadda ha la kala saaro insha allah. waana mahadsantihiin.